gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayraad Dirir ayaa maanta mar labaad u anbabaxay deegaanada Saxdheer iyo waliba degmada Dharkeengoye ee gobolka Sool oo ay kulan kula qaateen mas'uuliyiin ka socda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Sool ayaa waxa safarkaasi ku weheliyay taliyaha qaybta 31aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Ismaaciil Faarax Awaale Doolaal. waxaana safarkaasi ay ku gaareen deegaanada Saxdheer ee koonfurta gobolka Sool oo ilaa 85 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan xarunta gobolka Sool ee Laascaanood, halkaas oo ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxayna mas'uuliyiinta kulan kula qaateen duleedka deegaanka Saxdheer barasaabka gobolka Doolo ismaamulka Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay weheliyaan taliyaha niyu booliska ee gobolka Doolo iyo waliba saraakiil kale oo ka tirsan gobolkaasi Doolo. waxaana mas'uuliyiinta labada gobol ee kulankaasi ku wada yeesheen ay ku adkeynayeen nabadgelyada labada dhinac si meel looga soo wada jeesan lahaa. kulankaas oo muddo saacadaha qaatay ayaa wuxuu gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayraad Dirir uu noo xaqiijiyay in ay isla gaareen 4 qodob oo ku taxalluqay adkeynta nabadgelyada labada dal maadaama ay tahay xuduudda u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya. qodobadan oo kale ah in xuduudada labada dal ee dalka Soomaaliland iyo waliba dalka Itoobiya uu yahay mid cad in meel looga soo wada jeesto oo gacan bir lagu qabto cid kasta carqaladeynaysa heshiisiinta labada beelood, heshiisiinta labada arda ee deegaanka Saxdheer iyo Dharkeengoye ka soo jeeda oo iyagu shaqaaqa ay ku dhaxmartay barihii u dambeeyay waan ayaa markii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay go'aano adag ka soo saartay si labada beelood ee koonfurta gobolka Sool wada daga oo barihii u dambeeyay shaqaaqa ku dhaxmaray. waxaana halkaasi ku sugan cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo nabadgelyada deegaankaasi gacan bir la ku haya. waa Barkad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.